السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo Arbaca Khamiisi soo galayso taariikhduna waa 17 bisha Juun sanadka 2026 barnaamijkuna waa kii saddexaad aan idin soo gudbinayno maanta qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa kamid ah durbaba waxaa la bilaabay in la adkeeyo ammaanka goobta uu ka dhacayo saxiixa Mareykanka iyo Iran ee wadanka Switzerland ciidan 2,000 oo militariga Switzerland ah iyo qalab qatara oo wax basaasa iyo kuwa ilaalada ku fiican ayaa la dhoobay meesha uu ka dhici doono saxiixa Trump oo markale maanta hadlay kana yaabsaday caalamka muxuu sheegay odaga waan idin hayaa hogaamiyaha Hezbollah Naim Qasim oo isaguna arrimo muhiima ka hadlay wuxuu si gaar ah uga hadlay arinta dagaalka Iran iyo Mareykanka iyo heshiiska la gaaray iyo arinta Lebanon Hezbollah oo dhanka kale maanta la sheegay inay weeraro dhinaca droniska ku qaadeen fariisimo ay joogeen ciidanka Israa'iil iyagoo ka jawaabayay weerar Israa'iil madaafiic ay ku qaaday gudaha Lebanon Israa'iil oo goordhow sheegtay inay askar kaga dhaawacantay weeraradaas haddaba warbixinadii ugu dambeeyay wixii soo dhacana waan idinla socodsiin doonaa barnaamijkeena waa kii saddexaad ee aan idiin soo gudbinayno maanta Arbaca wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo Arbaca Khamiisi soo galayso taariikhduna waa 17 bisha 6 2026 barnaamijkuna waa kii saddexaad waxaynu kusoo gudbanaynaa akhbaaraad iyo warar wixii soo dhacay intii aynu kala maqnayn haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa dalka Switzerland maalinta Jimcaha ah waxaa ballansan in halka ay ka dhacdo xafladda saxiixa heshiiska Mareykanka iyo Iran waxaa la ogol yahay inay halka tagaan wufuud ka socota Pakistan iyo Qatar Israa'iil sheegay aagan ma soo galayso ayad waa weynka ku shiray meeshan ma maqli jirtay waa weynka nimankii waa weynaa Iran waa weynka gashay marka heshiiskaas marka la qabana Switzerland marka meesha lagu qabanayo waa meel muntajac meel raaxo loogu talagalay hotel qurux badan oo jabal dushiisa ku yaala buur dusheeda ku yaala eriyado dhan wada green cagaar tahay qurux ah waa meel qurux badan ay Switzerland geysay in lagu saxo 2,000 oo askari iyo qalab ilaalo ah oo wax basaasa waxaan oo dhan qalab ciidankan maxay tahay waftiga Iiraaniyiinta la waardiyeena alle nimankaas hadda sidii hore ma ah niman iska socdo oo boorso iska wato ordaab ma jirto hadda nimankan adduunka oo dhan ay kala hayaan halkaas ay qabanayaan hadii la isku walwaalo waxay qabanayaan marinbiyoodka Hormuz eejiye qabanayaan adduunka dhaqaalihiisa oo dhan marka nimankii hadda awshaas ayaga loo galale haddaba warbixin faahfaahsan sida xaalku yahay meesha shirka lagu qabanayo xaaladiisu sida ay tahay amniga wufuuda waxa dhan waxa warbixin ka diyaariyay telefishinka Al Jazeera haddaba markaan idin tuso ciwaan waxa looga dhigay 2,000 oo askari ayaa la diyaariyay waxa soo kale la xirayaa hawada soo marta meeshaas Switzerland waxay diyaar u tahay maalinta la saxiixayo heshiiska u dhaxeeya Washington iyo Tehran in marka ay si fiican isugu diyaariso haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay indhaha caalamka oo dhan waxay ku soo jeedaan goobta loo dalxiis tago ee la yiraahdo Burskestok ee dalka Switzerland taasoo mardigelin doonta xafladda saxiixa heshiiska is-afgaradka ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran Jimcahan dowladda Switzerland ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin amni oo markaa lagu xoojinayo ammaanka goobtaasi iyadoo la filayo inay yimaadaan wufuud ka socota wadamada ka qayb galaya xafladda saxiixa axadii hore Washington iyo Tehran waxay ku dhawaaqeen heshiis horudhaca oo lagu soo afjarayo dagaalka bisha socday kaasoo markaa la sheegay in ay ku dhinteen intii uu socday kumanaan qof qaar kalena ay ku dhaawacmeen heshiiskan wuxuu bixinayaa qaab dhismeed lagu joojinayo colaadaha
wuxuuna kordhinayaa xabad joojintii u dhaxaysay labada dhinac muddo 60 maalmooda. diyaargarowga ka socda goobta si xoogan ayuu uga socdaa dalka Switzerland si loo martigeliyo dhacdadan muddada dheer la sugayay ee taariikhiga ah kadib bilo wada hadallo adag oo markaa laga shaqaynayay. faahfaahinta tallaabooyinka amniga dowladda Switzerland waqti kuma lumin raadinta ansixinta golaha federaalka tallaabooyin taxana ah oo loogu talagalay in lagu hubiyo jawi ammaan ah oo loogu talagalay xafladda saxiixa iyadoo damaanad qaadaysa geedi socodka sidii xafladaasu ay u hagaagi lahayd. haddaba war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Switzerland caawa waxay ku dhawaaqday in golaha federaalka waddankaasi uu ansixiyey in la geeyo goobta saxiixa ciidamo taageeri doona kuwaasoo ah ciidan militari oo 2,000 oo askari ah si ay uga qayb qaataan iyaga iyo qalabkooda sidii loo sugi lahaa amniga goobta. ciidanku waxay taageeri doonaan booliiska sidoo kalena waxa ay ka shaqayn doonaan sidii meeshu ay u noqon lahayd meel ammaan ah. xiritaanka hawada dowladda Switzerland waxay ku dhawaaqday xiritaan ku meel gaar ah oo hawada inta lagu jiro munaasabada in hawada aagaas la xiri doono. waxay xustay dowladda Switzerland inay waajib ku tahay inay hubiso badbaadada martida ku sugan halkaas. waxay sharaxday dowladda Switzerland in xayiraadaha hawada ay dhaqan gali doonaan oo hawada la xiri doono laga bilaabo June 18 ilaa 20 June 2026 waxaana la xiri doonaa agagaarka shirka meesha uu ka dhacayo 46 kilomitir wax u soo dhawaan kara male waxaana halkaa la geyn doonaa qalab iyo alaabooyin kale. heshiisku heshiis sahlan ma aha. waxaa moodaa meel ay ku shirayaan madaxweynayaasha Putin iyo maaragtay Biden waagii ay shiri jireen oo kale sidii Switzerland markay isku arkayeen eriyada dhan loo xiray wuxuu dhaa wafdiga Iiraaniyiinta saasa loogu xiraa meesh iyo wafuudi kale halka ka qayb galaysa. waayahay marka warbixintaas faahfaahsan marka waxa laga diyaariyay xafladda tawqiica maalinta Jimcada la isku diyaarinayo. ninkii Trump ahaa gabgable waa wareersan yahay odagaan shir jaraa'id uu qabtay galabta. shirka jaraa'id muxuu ku sheegay xafladda waxa laga yaabaa saxiixa inay dhacdaan iska leeyahay qamiista ama jimcaha wax lagu heshiiyay maaha miya soo dowladan soo kuma talagelin wakiiladeeda baarlamaankeeda soo 2,000 askari maalinta jimcaha soo lama dhihin soo dowlado kale ka imaanay soo marti ma imaanayso qamiistaana maxay tahay. wuxuu ku leeyahay aniga Yurub si jooga wuxuu ka qayb galay Faransiiska shirkii mugtahay G7 oo ka qayb galay marka wuxuu leeyahay waa iska sii joogi doona heshiiska inuu tagaal marka laga yaaba. marka laakiin waxay dadka la yaab ku noqday waxa la iska leeyahay qamiista iyo jimcaha midkood inuu heshiisku saxiix ma laga yaaba ama jimcaha ninkan waxaan maba xisaabsanaba odaga maskaxdiisa oo horeysan tahay dadkaanuna waqti nidaam ciidan qalab waxba meeshii la geeyay jimca lagu talagalay qamiistan uu soo boobsiinaa baxtay dadkii dhala su'aalo is weydiinay. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxa leedahay Trump wuxuu sheegay inuu u joogi doono Yurub xafladda maaragtay saxiixa heshiiska ayaga iyo Iiraan inuu Yurub u sii joogi doono oo markaa uu Yurub ku sii hakan doono uusan laaban doonin macnaha ilaa jimcaha. marka asaga qamiistaba in looga dhigaa la iska rabaa qamiista marka oo maaragtay baritaba in la kala tuuro hawsha lagu kala socdo. marka arikaas uu marka odaga sameeyay marka sheekadaas halkaas maraysa xaal marka halkaas uu jooga. dhanka kale hogaamiyaha Xisbullah Sheekh la yiraahdo Naciim Qaasim ayaa isaguna war faahfaahsan soo saaray dhowr arrin oo kaga hadlay arrinta heshiiska Iiraan iyo Mareykanka saameynta uu Lubnaan ku leeyahay. marka warkiisaas wixii laga qoray haddaan idin la wadaago. haddaba marka waxa leeyahay Naciim Qaasim wuxuu sheegay mashruucii ay wateen Washington ee lagu gumaysan lahaa Iiraan waxa uu yiri hadda wuu fashilmay. xogayaha guud ee Xisbullah Naciim Qaasim wuxuu uga mahad celinayaa dowladda Iiraan
inay isku xirtay fagaaraha lubnaan iyo iska caabinta iyo dagaalka lubnaaniyiinta ay israa'iil kula jiraan iyo joojinta guud ee dagaalka. ujeeddadu waxay ahayd uu leeyahay in la afgembiyo nidaamka iiraan ee islaamiga ah. mashruucaasi wuxuu salka ku hayay in gumaysi la geliyo shacabka iiraan markii dowladooda meesha laga saaro, laakiin arrinkaasi wuu fashilmay. awoodda iiraan hadda waa mid aad u weyn, waxayna leedahay codka gobolka ugu weyn iyo midka adduunkaba. dheelitirka awoodda ayaa isbedeli doona, xaaladuna waxay noqon doontaa awood u soo korortay islaamka. haddaba cadaadiska lubnaan wuxuu wajahayaa gardarrada israa'iil. calaamadahan waxay soo jeedinayaan in israa'iil ay rabto lubnaan oo daciif ah si ay u qabsato, laakiin inta iiraan ay nooshahay awood leedahay, israa'iil uma suuro geli doonto inay si fudud lubnaan ku qabsato. mashruuca israa'iil waa in gebi ahaanba la tirtiro xisbullah, taasoo la macno ah in la baabi'iyo oo la barakiciyo dadka reer lubnaan, dhulkoodana la qaato, iyagoo noqon doona koox markaa aan lahayn ama dal aan lahayn iska caabin. ma jiraan aagag tijaabo ah ama meelo ammaan ah oo israa'iil ay ku sugnaan doonto lubnaan gudaheeda ilaa inay ka cararto oo ay ka baxdo ayay xisbullah dagaalka sii wadi doonaan. waaye marka sheekadaasu iyadana waxaa laga qoray naciim qaasim warkiisa ayaa laga diyaariyey oo laga qoray hogaamiyaha xisbullah oo isaguna war soo saaray. dhanka kale maantaydii hore waan idiin sheegay barnaamijkii hore israa'iil madaafiicay ku duqaysay gudaha lubnaan. iyadana marka waa loo soo jawaabay, diyaaradiyaa loo soo diray laba xaba kuwii isqarxinaya ah la dhahay bal naga aamusiya meesha ay kasoo dhacayaan madaafiicda. meeshii inta tageen nagta ka saareen madaafiicdii iyo kuwii ridayaba kala orada ka dhacay. hadda israa'iil way qoraysaa ciidamadeedu waxay leeyihin 5 askariya nooga dhaawacantay, xere ay ciidanka joogeen lasoo weeraray leeyihin. marka waa meeshii madaafiicda ay ka ridayeen waxaa loo soo diray laba diyaar oo daroora. haddaba aan idin tuso, israa'iil waxay sheegtay 5 ka mid a ciidankeeda inay dhaawacmeen weerar ay soo qaadeen 2 diyaaradood oo daroona oo xisbullah ay leeyihiin. weerarkaasina wuxuu ka dhacay koonfurta lubnaan ayuu ka dhacaa la leeyahay. marka sheekada iyaduna halkaas ay joogtaa oo ay maraysaa, xaalku waa halkaas. haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbi doonaa haddii alla idmo wixii macluumaada ee soo dhacay intaynu barnaamijkeena ku jirnay. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii habeennimo. qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aynu maraynaa. qaybtan waxaynu kusoo qaadanaa wixii warara ee soo dhacay inta aynu barnaamijka ku jirnay. haddaba war goordhow soo dhacay waxaa soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan waxay leedahay sii socoshada gumaysiga israa'iil koonfurta lubnaan ay ku hayso dhul badan ay ka qabsatay waxay ku tumanaysaa heshiiska isfahamka ah ee la gaaray. marka 14 qodob ee heshiiska qaybaha looga hadlayaa in israa'iil ay iskaga baxdo dhulkaas. marka israa'iil weli way ku adkaysanaysaa, hadday kusii adkaysato macnaa heshiiska la saxiixi doono waxaa ku jira inay dhulkaa ka baxdo, gumaysi ka joojiso. hadday kusii adkaysato iiraan waxay leedahay waxay ku tumanaysaa, marka arrinkaas uu ku tumanayaa heshiiska isfahamka ee la gaaray ee la rabo jimcaha in markaa la kala saxiixdo. marka xoogaa marka nooc min tahdiid ah ku jira, hanjabaad iiraan dirayso, maraykana loo diraa. waxaa leeyahay nimankan weli meeshii way ku jiraan, saansaan ay lubnaan uga baxayaanna ma muuqato. marka waa xadgudub heshiiska muuqda oo haddaba la arkaayo. marka waa in wax laga qabtaa. mar haddii heshiiska la saxiixo nimankan waa inay meesha ka baxaan. marka sheekadaasu halkaasay maraysaa. haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa. waan filayaa barnaamijyadeydii koobaad iyo kii labaad maanta oo arbacaan idiin soo gudbiyey inaad si weyn uga hesheen. haddii alla idmo wixii soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. like gareey oo share gareey barnaamijka. haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka iloobay youtube-ka, facebookana follow gareey. inta aan mar kale kulmayno, nabadgelyo.